filimka Zulmi kan waa filimkii uu ka soo bilowday xiriirkii jacayl ee Akshay Kumar iyo Tawakal Karna mid ka mid ah aflaamta aadka loo xiiseyn jiray xilligii hore. Hadda waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan, balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad channel ku soo biirto muuqaalka dadka like inoo saar si share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal. Filimkan Zulmi waa mid ka mid ah aflaamta madadaalaan aad u wanaagsan daawashadiisa. Waxa uu gaameelka wada Akshay Kumar, Tawakal Karna, Amrish Puri, Milandi Gunaji iyo Soomaalida qaar ay ugu yeeraan Saalax Dheere ama Atoraha Geelka. Marka la eegana filimkan waxa uu soo baxay 16 Abriil sanadii 1999. filimkan waxaa agaasima ama director ka ah ninka lagu magacaabo Kuku Kohli. lacagaha lagu qarash gareeyay waxaa lagu sheegaa 3.50 karoor, waa in ka badan 400 oo doolarka Mareykanka, waxaana keenay 2.75 karoor, waa in ka yar 400 oo doolarka Mareykanka. natiijaan flop ayuu noqday. filimkan marka la eegana waxaa la saaray in ka badan 170 tiyaatar. filimkan waa filimka 43aad ee lacagii ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1999. shabakada caanka ee IMDb ratingka ay ku sameysay macdanta waxay siisay 10.4.5 taasoo ah in sheekadiisu aad u liidato. markaan haddaan eegno filimkan xaqiiqooyinka laga diiwaangeliyay hal iyo laba ayaan ka eegi doonaa saaxiibayaal. xaqiiqada ugu horeysa filimkan aan ka eegi doono waxa weeyaan filimkan waxaa la leeyahay waa filimkii labaad ee isla sameeyaan lamaanaha kale Akshay Kumar iyo Tawakal Karna isla sanadkaasi. ka hor filimkan waxay iskala soo muuqdeen ama iskala shaqeeyeen filimka lagu magacaabo International Kiladi kaasoo bil ka hor tiyaatar la saaray intaan filimkan la saarin. xaqiiqooyinka waxaa qayb ka ah filimkan marka hore waxaa la rabay in la daawado ama tiyaatar la saaro sanadii 1997, laakiin 2 sano ayuu dib u dhac ku yimid, sidaas darteed waxaa tiyaatar la saaray sanadii 1999. xaqiiqooyinka waxaa qayb ka ah filimkan waxaa la leeyahay waa filimkii ay ka soo bilowday ama ka bilowday xiriirkoodii jacayl lamaanayaasha kale Akshay Kumar iyo Tawakal Karna. kadib xiriirkooda wuxuu isku bedelay mid guur ah, waxaana isku dhaleen 2 caruur ah. Akshay Kumar Tawakal Karna ka hor waxa uu xiriir jecel lahaa atishada lagu magacaabo Shilpa Shetty, laakiin meel cad ayuu ugu tagay. xaqiiqada ugu dambeysay aan filimkan ka eegi doono waxa weeyaan heesta lagu magacaabo Shallow iyo Sheila. asal ahaan waxa laga soo minguuriyay ninka lagu magacaabo fanaanka caanka ah Cliff Richard heestiisa heesta lagu magacaabo Waysaye. aan se kugu daray filimkan waxaa ku jira qaar kamid ah heesaha aadka loo xiiseyn jiray xilligii shaleemooyinka, waxaana kamid ah heesaha filimkan ku jira kuwada ugu caansan heesta lagu magacaabo Tere Badmaashiyahu. haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa muuqaalkayga. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like inoo saar, sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada. aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.